videogan waxaan kuu tusi doonaa qaabka loo sameeyo markaas business email kaba soo qaad emailka kuu sameysan hadda haduu yahay magacaada gmail.com sida midkaas kuu muuqdo. waxaan arki doonaa qaabka loogu bedelo professional email sida website-kaada gmail.com oo kale. okay, kadibna waxaan arki doonaa marka qaabka loogu xiro emailkaada free ah midka markaas professionalka oo hadhow fariin lagugu soo diro. oo kaba soo qaad qofka markuu hadhow fariin kuu soo dirayo markaas inuu kugu soo diro professional emailkaada. sidoo kale marka su'aashu waxay tahay maxaa u doonaysaa professional email. free emails inta badan waxay u muuqdaan kuwo markaas cheap ah, laakiin marka haysato professional email waxaad ka cadeynaysaa inaad businesska ama waxaan aad serious ka tahay. marka xigta free emails badanaa waa iska easy markaas in la hacking garayo, laakiin halka professional emails ay adag tahay markaasi in la hacking garayo. stepka saddexaad ayaa professional emailka waxay ka caawinayaan inaad markaasi aad dhisto ganacsigaaga oo markaas aad kor u qaado. okay, haddaba step koobaad marka professional email u dhisno website ma leedahay. si aan u helno professional email ama business email sida magacaada website-kaada.com oo kale waa inaan leenahay markaasi website ama at least ugu yaraan waa inaan leenahay domain name. video ugu dambeeya waxaan ku tusaa qaabka markaasi loo helo markaasi loo dhiso website-kaada. sidoo kale waxyaabahan ku tuso markaasi waxaa kamid ah qaabka loo helo domain and hosting anagoo markaasi adeegsanayno HostGator. marka stepka labaad waa inaan markaas aan abuurno professional email. saan u abuurno kaliya waxaad furataa tab cusub, kadibna waxaad tagtaa HostGator maadaama ay yihiin kuwan ka iibsan domain and hosting. kadibna waxaad dhahdaa sign in, kadibna waxaad dhahdaa portal. okay, login ayaan leenahay maadaama hore aan markaas maxaa la dhahay uga iibsana. waxaad dhahdaa markaas emailkaada iyo passwordkaada geli, kadibna login dhe. markaan login dhahna saa u jeeda meesha hadda waxaa nooga sameysan website-kii aan hore usoo sameysanay. okay, kaliya waxaa dhahdaa launch cPanel, kadibna inta ayuu ku keenaa. waxaad ku dhufataa meesha ay ku qoran tahay markaas email accounts. email account markaa dhahda kaliya waxaa dhahdaa create. marka hadda meeshaan abuur marka emailka aad rabto. saa u jeeda hadda dhamaadkan waxaan ku haysanaa hardwebsameyn.com. kaliya waxaad hormarisaa markaasi waxa aad rabto. aniga hadda info ayaan leeyahay, contact waxyaabo badan adeegsan karta. aniga hadda info ayaan iska isticmaalaa. kadib meeshaan waxaa gelisaa passwordka markaasi emailkaada. okay, kadibna waxaa dhahdaa create. marka intaas sameysaa u jeeda marka hadda meeshaan waxaa noo sameysmay professional email ayaa noo sameysmay oo markaas wata magaca website-keena iyo hore anagoo ka siina markaasi info. okay, tabka saddexaad waa inaan ku xirno emailkeena marka free ah. si aan ugu xirno emailkeena free kaliya waxaad tagtaa qaybta gmail ka application-ka tag. okay, marka aad tagto waxaad tagtaa qaybta markaasi calaamadda setting-ka tag, kadibna waxaad kasii doorataa see all setting. inta ayuu keenaya waxaad kasii doorataa account and import, kadibna waxaad kasii doorataa add mail account meeshay ku qoran tahay ku dhufo. shaashadan ayuu keenay kaliya marka meeshaan waxaa gelisaa email addresska professionalka ah ee aad soo sameysatay, kadibna waxaad dhahdaa next, kadibna waxaad dhahdaa meeshaan next. marka inta ayuu keenaya kaliya wax kale maaha professional emailka soo sameysatay geli. sidoo kale meeshaan waxaad gelisaa markaasi passwordkaada. okay, passwordka markaasi caadiga emailka professionalka ee markaas aad u soo abuuratay. marka ugu dambeysana hubi meeshaas inaad tag ku saaran tahay oo hadhow markaasi message lagu soo diri karo. kadibna waxaad dhahdaa add account, kadibna waxaad dhahdaa markaasi next, kadibna meeshaan marka waxaad gelisaa magacaad u rabto. aniga hadda waxaan adeegsanaa magaca website-keeda oo ahaa websameyn oo hadhow qofkaasi markaan fariin u diro magaceeda ayuu arkaa. kadibna waxaa dhahdaa markaasi next step. marka xigta marka meeshaan waxaad gelinaysaa mar kale emailka addresskaada ayaad gelinaysaa. okay, kadibna marka waxaad gelinaysaa meeshaan passwordkaada caadiga ah. marka ugu dambeysana hubi midaas inaad tag ku saaran tahay. okay, kadibna waxaa dhahdaa markaasi add account. marka hadda wuxuu na leeyahay verify inaan sameynay inaan meeshaan aan code gelino. u gelino kaliya waxaa ku laabataa qaybta inbox-kaada ku laabo.
so Gmail marka hadda waxa ujeedaa inuu fariin kuu soo diro. So hal mar hadii aan furno markaasi marka ugu horeysa linkan dheer horta marka koobaad ku dhufasaan markaasi aan confirm u dhahno markaasi kadibna waxa dhahdaa markaasi confirm. So saa ujeeda marka hadda waa confirm gareena markaasi marka hadii aan ku laabano mar kale qaybta markaas Gmail kana. So markaan waxa u baahnaa inaan koodka aan koobiyano. So saa u koobiyeen kaliya hoos u dag kadibna markaasi koodkaan koobiyay. Okay, marka koobiyeyso waxa soo kacaysta screenkii markaas yaraa kadibna meesha marka koodka gali kadibna waxa dhahdaa markaas verify. So marka hadda halkaas waxa nooga sameysmay professional email ah. Mar kale marka qaybta setting hal mar hadii aan ku laabano oo markaas account aan import aan dhahno. Okay, waxaad hubisaa marka meeshaan inay tick ku saaran tahay reply ah oo qofka hadhow markaas aad emailkan professionalka ugu jawaabi karto. Step afraad waa inaan dirno markaas message tijaabo ah. So mobilkan hadii aan la soo baxno oo markaas aan u dirno emailkan professionalka ayaan tijaabinayna inay fariin gaaraysi in kala. So hadii aan u dirno markaasi aan subject ugu dhigno markaasi maxaa la tijaabo sidoo kale fariintana aan saan ka dhigno. So marka aan dirno okay, so marka hadii aan furno shaashadan waxa ujeedaa in markaas fariintii ay na soo gaarto oo qofkaan ku soo diro professional emailkeena. So saa ujeedo fariintaasi halkaas naga soo gaartay. So hal mar hadii marka aan meeshaan furno waxa ujeedaa fariintaan markii inay ka timaado qofkaas oo ku soo diro markaas professional emailka markaasi aan sameeysanay. Okay, so mu jawaabi karnaa marka hadii aan reply dhahno oo markaas aan fariintaan u dirno waxaan rabnaa markaas inuu qofkaan aan aragna magaca iyo markaas emailka markaasi uu markaas fariintaan ka imaanayso. So marka hadii aan send dhahno fariintaan aan u jawaabno hadii marka qofkaan mobilkiisa oo fiiriyo waxa ujeedaa fariinta inay ka timaado marka hore magaca website-ka magaca aan u baxsan oo markaas ah website. sidoo kale hadii marka meeshaan aan furno waxa ujeedaa fariinta inay ka timaado info@website.com oo ah markaas professional emailka markaasi aan soo sameeysan. So marka sidaas ay abuuri kartaa professional email. Okay, so marka hadii aad rabto inaad markaas sameyso website kaliya waxaad ku dhufataa linkiga description-ka kugu soo horeeyo.